عليكم ورحمة الله وبركاته أرديد أفلح أونلاين إيجارك كسو دواذا 10 كله أو وذا الشيكيسي wada sheekaysigu ama conversationku waa mid ka mid ah qaababka luuqadda ay dadku ay ku bartaan gaar ahaan wada hadalka mar alwalba oo aad dhageysatid cashar wada hadalka ah waxa uu macallinku kaa filayaa ama ay tahay in aad casharka waxaad ka baratay aad isticmaashid casharkanina waa casharkii saddexaad ee wada sheekaysiga oo aanu ka soo qaadanaynay buugga wada sheekaysiga ee aanu idinka dhigno casharada aad ka daawataan kana dhegaysataan aflax online casharkan ayaa waxa uu noqonayaa wada sheekaysi dhex maray laba qof inta aanan wada sheekaysiga aanan u gelin waxaan rabaa inaan idiin micneeyo erayada qaar ka mid ah aad kula kulmi doontaan casharkan iyadoo aan markaasna iyagoo jumladda ku jira aan idiin macnayn doono waxa ay yihiin ereyga ugu horeeya waa wat waa erey su'aaleed waa maxay weeye maxay waa su'aal next ereyga kale aan baranayno waa next waxa weeye ku xiga next waxa weeye ku xiga wax ku xiga what is next maxaa ku xiga ereyga kale aan baranayno waxa weeye ereyga salaanta ah hi waxaa isku salaama labada qof ee dabcan ama ardayda ah ama wada shaqeeya ee aqoonta isu leh waxaana la yidhaahdaa waa informal salaan hi I waa magacuyaal amtu waa verb to be ereyada kale aanu soo qaadan karna waxa weeye your ereyga you waa adiga your markaad maqashidna waa lahaansho oo wuxuu qofka asaga leeyahay name waa magac af Soomaali ahaan ereyga to haddaa maqashid sidoo kale adigana weeye adigana sidoo kale ereygan kale ee like waa rabitaan ama waxaad calmatay ama jeclaatay baa la yidhaahdaa earrings waa dhagadhagaha thanks waxa weeye mahadsanid qof markaad u mahad celinaysid waxaad odhan kartaa thank you adigu waad mahadsan tahay ama thanks mahadsanid ayay kala noqonayaan ereyga they waa magacuyaal waa pronoun waxaana weeye iyaga they waa iyaga ereyga very waa zaa'id old kelmadda old waa duq ama wax gaboobay haddii qof ay tahay ama hadday shay tahayba gabow ama duqnimo ama duug af Soomaali waxay ku noqonaysaa duug tusaale ahaan halkan oo kale sheekada ninku wuxuu ka hadlay gabadha shay ay leedahay oo dhagadhagaha ah marka waxay tiri they are very old ma oran kartid af Soomaali ahaan waxaani waa duq waa ma dhihi kartid waa wax gaboobay waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa duugna waa la dhihi karaa marka ereyada ingiriiska mararka qaarkood waxaa laga yaabaa erey inuusan isu turjumin oo macno kale ay u gasho meesha marka halkan oo kale waxay ugu jirtaa qadiimi ama wax hore oo qofku uu muddo fara badan u haystay ereyga maxaan ku radaa aan baranayna sidoo kale waxaa waay no I know you anigu adiga waan ku garanayaa no waa garasho okay no waa garasho knowledge waa cilmiga ama cilmiga garashada laakiin kelmadda no waxa weeye garasho oo waxaa garanaysid weyn kelmaddan haddaa aragtid the waxa weeye article ayaa ingiriiska lagu yidhaahdaa macnaheeda waxay sheegaan waxa marka uu yahay kelmadaha Soomaaligu saddex artiklada ay saddex yihiin Soomaaligu ilaa iyo 8 ama 9 weeye waxaa weeye ninka taagan albaabka haddaan ku dhaho marka kelmadda ka'da ee ninka gadaal ka raacsan ninka gadaal ka raacsan taa waxay Soomaali ku tahay article ingiriiskana waa sidaas oo kale the man standing at the door ninka taagan albaabka ninka marka kelmaddan waxaa la yiraahdaa marka waxaa la isticmaalaa waxa la isla yaqaano ayaa waxaa la isticmaalaa the man waa nin with kelmadda with waa macnaheedu wax la jiro ama waxa la socda halkan sentence waxay ugu jirtaa do you know the man with the glasses ma taqaanaa ninka ookiyaalaha xiran bay ugu jirtaa
ninka ookiyaalaha xiran. Marka with waa wuxuu qof la socdo ama uu wato ama uu gashan yahay, halkan wuxuu xiran yahay bay ugu jirtaa. Kelmadda kale oo aanu isleenahay macneeya hiis waa wixiisa, hiis. Heer waa wixeeda, waa qofka dumarka waxay leedahay. Mine waa waxaan aniga leeyahay. Hiisna waa wuxuu asaga qofku leeyahay. Halkana jumladda waxa weeye what is his name, magaciisa muxuu yahay. Kelmadda kale oo aan baranayno halkan waxa weeye nice waa wanaagsan. Nice waa wanaagsan. Kelmadda aan ku xogay rabaan baro waxa weeye introduce waxa weeye barista. Labada qof la isbaro baa introduce la yiraahdaa. Kelmadda kale oo aan baranayno waxa weeye sure oo ah wax aad hubtid ama hubaal ah. Single waxaa la yiraahdaa doobka, qofka haddii uu yahay aanan guursan. Soomaaliga macno kale ay ku leedaan u malaynayaa, laakiin qofka aanan guursan baa la yiraahdaa aanan xaaska lahayn single. Hadda for example uu ku dhihi karaa qofku are you single, are you married, ama uu ku dhihi karaa are you single or you are married. Are you single maxaa tahay keliga, ama wuxuu ka oran karaa are you married maxaas baad leedahay. Ereyga kale aanu ugu dambeeyaan raba inaan casharka ku barano maanta waxaa waa really oo ah xaqiiqda. Haddaba ereyadii haddaan idin baray aan idin baro markana wada sheekaysigii labadan qof dhex maray. Conversation wada sheekaysi. Conversation wada sheekaysi. What is next maxaa ku xiga. What is next baa la yidhahdaa wada sheekaysigan. Maxaa ku xiga. Qofkii koowaad ayaa wuxuu yidhi hi waa salaan, waan ku salaamay oo kale la mid tahay hi waan ku salaamay. I am Kieko, magacayga waxaa la yidhaahdaa anigu waxaanahay weye. I am Kieko, anigu waxaanahay Kieko. What is your name, adigu magacaaga muxuu yahay. What is your name, adigu magacaaga muxuu yahay. Qofkii kale wuxuu ku jawaabay hi Kieko, Kieko adiguna waan ku salaamay. My name is Maria, magacaygu waxa weeye Maria. My name is Maria, magacayga waxa weeye Maria. Nice to meet you, waxa weeye nice to meet you, kulan wanaagsan. You too, adigana sidoo kale. Kelmadda marka waataan idin sheegayay, qof hadduu ku dhaho thank you ama hadduu ku dhaho welcome, thanks baa la yidhaahdaa. You too waxa macnaheeda tahay adigana sidoo kale. You too waxa weeye adigana sidoo kale. I like your earring, waxa uu raaciyey oo ku yidhi I like waan ka helay your earrings dhagadhagahaaga. Maria I like your earrings, waan ka helay dhagadhagahaaga. Halkaa dhagadhagaha ku jirto waa bedeli kartaayo wuxuu qofka xiran yahay waa oran kartaa I like your glasses, waan ka helay ookiyaalayaashaada. I like your shoes, waan ka helay kabahaaga. Waan ka helay waad oran kartaa I like your shoes, kabahaaga waan ka helay. Gabadhii markaa waxay ku jawaabtay, qofkii kale Maria waxay ku jawaabtay thanks, waad mahadsan tahay. Sida qaalibka ah qof marka uu ku ammaano oo hadal ku yiraahdo, xataa haddii aadan qalbi ahaan aadan jeclaysan inuu qofka halka ku yiraahdo, waxa weeye waxa la yiraahdaa waa mahadsan tahay, adigoo aanan dee anu qaadanin maxataa qasab maaha inaad ammaantiisa aad run u malaysid. Markay dadkan galbeedka ah mararka qaarkood waxay iska ammaanaan waxay niyadda ka jeclayn. Thanks, waad mahadsan tahay. They are very old, waa kuwa duug ah ama waa kuwa hore bay tiri. They marka halka waxay ka isticmaashay my earring are very old, ma ayan oran. Dhagahaygu waa kuwa hore ma oran. Booskii marka dhagadhagaha ayaa waxay isticmaashay pronoun magacuyaal oo ah they. Waxay tiri they are very old, waa kuwa duuga, waa kuwa hore. Kieko, do you know mataqaanaa the man, ninka with the glasses, ninka mataqaanaa oo kiyaalaha xiran. Do you know miyaad garanaysaa bay tiri the man, ninka with the glasses oo kiyaalayaasha xiran. Buu yidhi. Markay weydiisay gabadhu waxay ku tiri do you know miyaad garanaysaa the man, ninka with the glasses oo kiyaalayaasha xiran, miyaad garanaysaa ayay tiri. Kieko ayaa wuxuu yidhi inta uu markii uu ka fikirayey ninkay weydiisay ayay haddana waxay tiri what is his name, what is his name, muxuu yahay magaciisa. What is his name, muxuu yahay magaciisa. Waxa uu ku jawaabay oo yidhi what is his name markay tiri wuxuu yidhi that's Bako, waa magaciisa waxaa la yidhaahdaa Bako. He is nice,
he is nice isagu waa qof wanaagsan he is nice isagu is nice waa qof wanaagsan marka ay tiri he is nice waxaad sidaasoo kale aad oran kartaa qof haddii aad leedahay he is nice she is nice waxaad doontidba u qaado marka waad dhihi kartaa qofkaasi waa wanaagsan yahay he is nice man or she is nice girl ama she is a nice woman waa qof dumaroo wanaagsan gabadhii marka waxay tiri markuu u ammaanay will you introduce me ma ibaraysaa bay tiri will you introduce me ma ibaraysaa will you waa erey marka xushmadeed ama waa wuxuu weydiisasho baa would loo isticmaalaa will you waana erey su-aaleed will you introduce me adigu miya aad ibaraysaa asaga will you introduce me isaga ma ibaraysaa sure xaqiiq buu yidhi haddaad rabtay waan ku barayaa he is single waa nin dooba oo aanan lahayn xaas you know ma og tahay ama ma garanaysaa gabadhii marka waxay ku jawaabtay markuu ku yidhi he is single waa nin keligiisoo dooba you know ma og tahay sure waxa uu yidhi xaqiiqdii really bay tiri gabadhii marka really xaqiiqdii ma runbaa oo kale wey marka ma runbaa marka casharkan waxaa weeye casharkaas oo conversationka ah wada sheekaysiga waxaana jeclahay ereyada in aad waa bilow saad u aragtaan waxaa ku jirta magacaaga muxuu yahay waan ku faraxsana inaan kula kulmo shay uu qofka jiray waan kaa helay waa mahadsan tahay waa wax duuga ma garanaysaa ereyada marka ingiriiska haddaad doonaysid inaad baratid ereyadaa lasoo qaataad jumladaha lasoo qaataa waxaa laga bedelaa waxyaalo yaryar baa laga bedelaa waxaana laga dhigaa in aad adigu sida aad rabtid aad u isticmaali kartid marka haddii ilaahay idmo waxaan idinka filayaa inaad casharkan aad xafidaan siduu u yahay kabacdina bartayada baraktiiska aan ku samayno whatsappka ardayda gaarka ah inaad markaa casharkan aad su-aala iska weydiin doontaan ama aad baraktiis aad ku samayn doontaan wixii su-aal aad ka qabtaanna aad macalinka aad soo weydiin doontaan haddii ilaahay idmo intaa ayaan ku gabagabeynaya